Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago ninkii aan idinka digayay maalintii ugu dambeysay aan ummadda ugu digaynay xalay wuxuu sameeyey ayaan rabaa inaan idinla wadaago. Markii uu dhammaaday barnaamijka showga ay ku sheegeen wuxuu markaa sameeyey wuxuu yidhi wax dhallinyarada qaybta wiilasha wuxuu dhahay gadaal iga baxa wax sawir aan idinla galaya ma lahan kaliya waxaan rabaa gabdhaha inaan sawir la galo. Marka kadibna wuxuu sameeyey wax cajiib badan waa muuqaalka dhammayso ilaa ay dhammaadkiisa daawo. Ninkan horaan ugu dignay waa nin maxaan ku dhahaa faaxishada sameeya, waa nin maxaan ku dhahaa in ummaddan muslimiinta fasahaadiyey loo keenay xamar, waa nin gabdhihii muslimiinta ee xijaabnaa maxaan ku dhahaa inuu ula dhaqmo sidii kuwii gaalada ahaayo ummadda indhaha ku tiray oo kale ula dhaqmo raba. Marka ila daawo muuqaalka waxa uu sameyn doono ba ila daawo muuqaalka wuxuu sameyn doono ila daawo sidoo gabdhaha sawirka ula galaayo, qaabku gabdhaha ugu dhagdhagaayo, maxaan ku dhahaa gabdhihii naftirkooda xishoodkooda iyo diintooda meelay dhigeen. Ninkan Afrikaanka ah maxaan ku dhahaa bini'aadamkii ugu fool xumaaya ayay maxaan ku dhahaa sawir la galayaan, waxay iska dhigayaan in nin maxaan ku dhahaa nin muslim oo daaciye ama khadiibe ama maxaan ku dhahaa ummadda karaamo ku leh inay sawir la galayaan ayaad moodaa qaabka ayaa ula galayaan. Bal ila daawo sidoo qaabka sawirka ula galaya gabdhaha, gabdhihii waa cana gabdhihii say ugu dhagayaan ilaahay fiir gabadhaas subxaanallah. bal eeg gabadhaas si sawir ula galaysa fiir laa xawla walaa quwwata illaa billah. bal eeg sidoo gabdhaha ugu dhagaya ninkaas intaasaa loo keenay kaliya faaxishadaas inuu sameeyo kaliya wuxuu leeyahay ka sikada wiil oo dhan ma rabo inuu yacni mikrofoonka qaato wuxuu dhahay wiilasha ma arkaysaan iga sikada uu dhahay idinka dhan bannaanka iga tagay idinma rabo idinka gabdhaha soo xarooda wuxuu u yimaaday kaliya intaas waa ilaa ninkan dumarka uu faaxishada yacni ku samayn jiray foolxumadooda say ahaayeen ogeyd gabdhaha marka yacni wuu la yaaban yahay quruxda badan leh gabdhahan quruxoon oo xijaaban wuu la yaaban yahay maanta jaaniska ugu weyn ee dunida yacni haystaan waxay la mid tahay isagoo maanta Sacuudiga jooga ama wadamada Carabeed oo kale ama wadamadan kale maxaan ku dhahaa aan Afrikaanta ahayn ay yacni ugu dhigantay isagoo maanta jooga. Marka sidaas gabdhaheeni waa ka subxaanallah gabadhaas taagsi ula galaysa laa xawla walaa quwwata illaa billah. Gabadhaas muslimadda ah ee quruxdaas badan ninkaas saas u yeela ayay maxaan ku dhahaa yacni saas ugu dhagaysaa subxaanallah. Gabdhihii xijaabnaa ee muslimiinta ahaa sida loo gala fiiri. Marka ninkan arrinkiisa wixii maxaan ku dhahaa in cid walbo awood u leh inay wax ka qabato ninkaas in wax laga qabtaa ayaan yacni ku talin lahayn haddii aan nahay dhallinyarada muslimiinta ee Soomaaliyeed Muqdisho joogta. Ninkaas qalad weyn iyo gaf weyn ayuu yacni gabdhaha muslimiinta ka galay siduu ugu dhagdhagayo fiiri gabadha xijaaban siduu ugu dhagayo bal eeg inay muslim tahay ma ogo. Marka ninkaa asaga ah in wax badan laga qabto. Ninkan waad arkaysaan diintii meel ugu dhacay, Soomaalinimada meel ugu dhacay, kuwii keenay asagaba in tallaabo laga qaado ayaan ka codsan lahay wasaaradda diinta oo qaafta haddii ay shaqaynayso haddaysan magacyaal ahaynin gabdhaha quruxda badan leh siduu bal eeg siduu yacni sawir ula galaya bal eeg siduu leeyahay ninkaa wax la fiirsan kara wax la daawan kara maaha. ninkaa isaga ah jaanisaa noo furan wuu joogaa ninkaan cid walba wax ka qaban karta inay wax ka qabato ayaan codsan lahayn. gabdhaheennii sharafta la muslimiinta ahaa sidaas u galay mid walbaba wuu soo jiidanaya subxaanallah bal eeg siduu u galay.